Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga kusoo dhawaada channelkayga Layla Kitchen. Maanta waxaan idinla wadaagi doonaa fruit iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay. waxaan soo qaatay baaquligaygii, sidoo kale waxaan soo jarjartay xabad muuse, halkaas ayaa kasoo saartay dhinaca. Waxaan soo jarjaray sidoo kale rubuc cinaba, halkaas ayaan soo saartay. Sidoo kale waxaan soo jarjartay 2 midh ama 3 midh xasab qof waxa uu doonayo. Qofna wuu yareysan karaa, midna wuu badsan karaa, qofba inta uu jecel yahay ayuu kasoo qaadanayaa. Sidoo kale waxaan soo jarjartay tufaaxa ka cadcad, midna waa cascas yahay, mid waa aqtaal, mid wuu cad yahay, adoo midba nooc weeyaan moogtahay. Anamka xabad cad baan soo jarjartay oo tufaaxii cadaaya ayaan soo jarjaray. Hadda waan kusoo guray. Fruitku aad iyo aad wuxuu ugu fiican yahay caafimaadka bini'aadanka oo dhan. Kaas imika aad arkaysaana waxa weeyaan tufaaxii casaa, sidoo kale isagana kuyacsaa weeyaan. Fruitku waxa uu aad iyo aad ugu fiican yahay caafimaadka qofka bini'aadanka, wuxuuna ka caawiyaa dheefshiidka iyo inuu ka helo biyo natural ah. Iyo sidoo kale halkaa waxaan kusoo daray tufaaxul aqtar baan isagana soo raaciyay oo aan kusoo daray. Halkaan waxaan ku haysanaa xabad cambaruuda. Sidaas ayaa fruitkeeni ugu soo darnay. maasha Allah tabaaraka raxmaan. Hadda waxaan samayn doonaa waa isdhexgelin doonaa, dhammaantood waa isdhexgelin doonaa. Qofba sibuu u samaysan karaa. Haddaba markaad saas oo dhan iskugu soo diyaariso, cream waad ku darsan kartaa. Intaad cream samayso dusha waad kaga dari kartaa, deetna fruit ahaan isagoo saasoon mashiinka iyo meel kale toona la gelin waa la cuni karayaa. Saasaa lagu cuni karayaa. Qofkii raba mashiinka ayuu gashanayaa. Hadda waxa aan soo qaaday fruitkeeni oo dhammaystiran, maasha Allah tabaaraka raxmaan. Waxaan ku shubay mashiinkii ridaqa, halkaas ayaan isku wada geeyay dhammaantood, maasha Allah tabaaraka raxmaan. Sidoo kale waxaa samayn kartaa haddaba marka aad ridaqdo waxba ha shaandhaynin, waayo galkoogii ayay wataan khudradani. Galkooduna aad buu ugu fiican yahay, marka waxba ha shaandhaynin. Saasaa lagu cabi karayaa, waa caadi. Hadda waxaan ku daray wax yar oo sonkor ah. Qofkii raba uu ku dari karaa, kii rabana ma ku dari karo. Biyo ayaan haddana ku daray imika, wax yar oo sonkor aan ku daray, biyo ayaan ka daba geeyay. Biyahana qofba inta uu doonayo isaga ayuu xisaabsan tahay. Qofkii yareysanaya, qofkii badsanaya, wanigaa ku shiday. Hadda maasha Allah tabaaraka raxmaan. Ilaahay ana caafiyo, caafimaadkiyo cimrigana Allah subxaanahu watacaala ha inoo dheereeyo. Dembigeena iyo dembiga waalidkeena Allah subxaanahu watacaala ha dhaafo. Alxamdulillaah rabbilcaalamiin. Hadda saas uu isnoogu soo shiidmay, waa idinka arkaya. maasha Allah si qurux badan buu shiidmayaa, maadaama uu midho leeyahay xoogaa yar inuu shiidmo weeyaan. Hadda sidaas uu inoogu soo baxay, maasha Allah tabaaraka raxmaan. inaba caadi muhayn dhadhankiisu, maasha Allah tabaaraka raxmaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.